maadaama hadda anaga nabad aan raadinayno waxaan u maleynayaa inaysan habboonayn in aan dhahno dowladda iyo dowladda ayaa hortaagan nabadda Soomaaliya laakiin ma dadku in badan oo kamid ah ay u dhigeen waayadii hore waxa farta lagu fiirki jiray saad la socoto wadamada gobolka markay timaado Ethiopia iyo Masar oo xifaartankooda iyo looltankooda webiga Niilka ku salaysan dhibaato badan la sheegi jiray Soomaaliya ka soo gaadho kuwaas ma kamid yihiin naga hadda dowlad ahaan Ethiopia iyo Masar mar walba xiriir fiican ah jiray Ethiopia-na go'aankii ciidamada inay kala baxdo Soomaaliya intii waxa ahaa go'aan fursad u siiyo dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed in wax badan oo isbedel laga sameeyo dalka gudihiisa marka waxaan isleeyahay faraha hadda meelaha lagu taagayo kuma jiraan Masar iyo Ethiopia waa tahay haddii taaynu halkaa kaga gudubno marka ay timaado magaalada Muqdisho dad aad iyo aad u fara badan baa saad la socoto ku barakacay muddadii labada sanadood ee dheeraadka ahayd dagaalada ay aad ku soo xoogeysteen dowladka magaalada ay degan yihiin tacab badan bay qabaan dhibaato badan baa haysata waa dabadiyaal ma isku daydeen dadka inaad ku qancisaan inay soo laabtaan xaaladii ay isbedeshay arrimahaas dadaal badan ayaa loogu jiraa waxyaabaha aan ka shaqeynayna waxaa ka mid ah bal dadkii in la helo hab loo gacan siiyo guriyihii burburay hab dib loogu dhiso in la helo gargaarka ay ku helaan ama waxyaabaha ku helaan meelaha ay degan yihiin hab gudaha loogu soo raro iyo guryahooda loogu soo raro marka hawshaas waa socotaa laakiin weli waxbaa ka dhiman marka ay noqoto dadkaas sidii loo taageeri lahaa idinkii uma haysaan weli wax ku filanoo ama guryihii dib loogu dhiso ama iyaga ku dhowda daryeel lagu siiyo yaa taa laga filan karaa annaga waxaan samayn karno inaan dowladaha iyo ururada inaan ku qancino in hawshaas ay qayb ka qaataan inta aanan kasoo bixin magaalada Muqdisho usbuucii hore dowladda Liibiya hay-ad ay leedahay khayri ah waxay keeneen mucaawino marka waxaa bilaabanaya hadda in gargaar uu soo gaaro dalka mudane madaxweyne fiirada adduunyada maanta sida aad adigu baqirtay waxyaabaha Soomaaliya mar kale ku soo jeediyay waxa kamid ah arrinta burcadbadeeda adduunyadina waxay isku raacsan tahay in dhibaatadan aanay ahayn in namada yaryar ee dhalinyarada ee doonida intay ka haystaan dabadeedna loornay marka bay ka soo afduubeen meel badda waxaa la sheegayaa in dad mas-uuliyiin waaweyn ay ku jiraan dhibaatada maxaad kaga beerin karaysaa dadka arrimahan burcadbadeed runtii waa arrimo khatartooda leh dadka Soomaalida waxyaabaha lagu yaqaan waxaa ka mid ah xalal quudnimo yani inay xaraanta ka fogaadaan in aan safarka la dhibin waxaan moodaa 18 sano lasoo dhaafay thaqaafada inay isbedeshay in aan wax dhacdid inay sharaf tahay hantida in lagu raadinayo hab walba oo lagu heli karo aan laga fikirin xalaal iyo xaraam qofka waxaas ku dhex jira dadka awladiisa oo qaraabadiisa inaysan in laga yaabo inay u arkaan wax sharafa waxyaabaha aad kan uga naxna waxaa ka mid ah dadka ka tirsan burcadbadeeda in dad maanta la daba ordaya ay yihiin ayagoo ku dhex jira waxyaabahaas dhaqanka Soomaalida hore waxaa ka mid ahaa jiray qofka waxyaabaha aan wanaagsaneyn oo diin ahaanta iyo dhaqanka aan ku wanaagsaneyn qofka marka uu sameeyo in la takoori jiray oo waxyaabaha waxaan ka yaqaan loo takoori jiray laakiin waxaa moodaa thaqaafadii Soomaalida in dagaal badan uu ku socdo taas marka waxaa loo baahanaa in wacyigelin xoogan la sameeyo dadku ay cid walba doorkeeda qaadato annaga maadaama aan nahay hadda dowlad cusub oo runtii waxa ay qaban karto ay kooban yihiin waxaan isku dayaynaa marka ugu horeysa bal wacyigelintaas inaan wax ka qabano ciidamadii amniga sugi lahaa biriga iyo baddaba inaan diyaarino laakiin mas-uuliyadda ugu weyn waxay ku dhacaysaa shacabka Soomaaliyeed waxaan sumcad ahaan waan taabanayaan waxaan la soconaa oo xasuusanaa maraakiibta la qabsanayo marka dowladda laga qabsado
dadka Soomaalida oo dalkaas dhex jooga waxay la kulmaan dhibaatooyin aad u fara badan waxa u qaadanayaan dawladuhu qof kasta oo Soomaali ah oo qayb ka yahay burcadbadeed waxaan dhihi lahaa marka maadaama aan nahay dad muslimiin ah dad taariikh wanaagsan aan nahay aan ka fogaano waxyaabahan aadka u fooshaxan waana runtii lacag kastoo la aruuriyo waxaan shaqo ku jirin Ilaahay subxaanahu wa ta'aala barbartiisa la isku weydiin doono sidaas darteed in waxa aan kasbayna in qadaan xalaal ah dalkeena sumcad xumaan aan soo jiidin iyo khatarta ka weyn oo maraakiibtan tirada badan oo badda joogta yani khatarta ay keeni karto waxay xal karaan ma burcadbadeed marka xalka laga hadlayo waxa ku taliseen adiga iyo dawladdaadu in loo baahan yahay sida imika aad ka dhawaajisay in burcadbadeeda lagula dagaalamo bariga ee dhibaatadan aanay ahayn mid badda u jirta hadda taa tafaasiil laga sii maxaa uga jeedaa waxaan uga jeedaa waxaan waxay ka dhasheen amni la'aan dalka ka jirta mar walba dad dembi inay galaan u diyaarsan dalka ka jiri jireen laakiin dawladda jirtay amniga jiray wala mas'uuliyadda jirtay wala istaag jiray qof walba ma garan karo maxaa xun maxaasan qof walba ma aha in damirkiisu u celinayo waa in la helaa nidaam iyo kala dambeyn iyo dawladnimo la helaa marka waxaan leenahay dawladnimo waxa uu horeeyana waa in ciidan amniga suga oo nidaamka soo celiya waa in la helaa mudane madaxweyne dhibaatada burcadbadeeda iyo afduubku meelaha xooggeedu uu ka dhaca waxa weeye dhulka iyo badaha hoos yimaada maamul goboleedka Puntland idinku Soomaali ahaan hogaamiye ahaan ma kala arkinsatay iyaga wali sida dhibaatada loo wajahayo arrimahaas dad mas'uuliyiin oo aan xil saarna ee jira inay kala hadlaan waxaan rajaynaynaa in mawduucaas isku aragti laga noqdo maxaa yeelay lacagaha tirada badan oo soo gelaya burcadbadeeda laftigooda waxay khalkhali doonaan amniga Puntland waxay khalkhali doonaan amniga guud ahaan Soomaaliya marka cidna dan uma aha in ay jirto burcadbadeednimo waati mudane madaxweyne sida aad ka warhayso shalay waxa magaalada Muqdisho ka degay ninkii hore ajaabka u ahaydeen Sheekh Xasan Daahir Aweys maanta isu soo bax ka dhacay magaalada Muqdisho ka qodbadeeyay موقفك ويستاجينا سلا عن فلينا فور هاي سوى حويه إنه كسر جد دولة هذا وحنا وشاقي إنه دوريو إنه حوجيو وليها إذا كسر جد ميدا فليس ما هي تاس ما فيلم صارتنا واحد هاي الشيخ حسن وتقرأ صور مثلا أو إبرة waxa ugu weyn oo aan ka fikirayna waxay ahaayeen markii ugu dambeysay dhibaatada ummadda Soomaaliyeed hortaada la qaado inkastoo aan ka aragtida wanaagsan siyaasad ahaan intii wadahadallada Socdaan Sheekh Xasan wuxuu ku doodi jiray Ethiopian kuma bixi doona waxna isma bedeli doona waxaan xasuustaa idaacadaha qaar wuxuu u sheegay haddii Ethiopian ku baxaan in uu diyaar yahay waxaan filaayay marka haddii Ethiopian ku baxeen ummadda Soomaaliyeed heshiisay dawladda dhisay in arrintaas ka qayb qaato ka dhaweeyo wixii oo bari laakiin in uu gadaal u laabto arrin aan sugayo ma laakiin haddana waxaan garan karaa qofku marka uu mucaaradkeeya habka uu fikiraayo iyo saamaynta yani sida loogu sameynayo iyo dadka Soomaalida laftigooda in ay aad iskaga jecel yihiin in wax la diido runtii in la dagaalamo in wax la diido dadka Soomaalida marar badan waxa laga yaabaa inay u arkaan yani sharaf iyo